xubinteennan maanta ayaan daawad waxaan ku eegi doonaa waa maxay maansooniyaddu. maansooniyaddu waa urur dahsoon oo yuhuudi leedahay una adeega danahooda. waxay caabudaan ibliis iyo shayddaamada oo ugu horeeyo lufser. waxa ay u gogol xaadhaan imaanshiyaha masiixu dajaal si ay ugu gacangeliyaan xukunka adduunka, caasimadana ay uga dhigeen qudus. haddaba maxaa maansooniyadda loogu bixiyey maansoon? sida iyagu sheegeen waa erey faransiisa oo micnihiisu yahay wastaad. waxay xirfadoodu ahayd dhiska. goormo ayaa la aasaasay maansooniyadda? ma ka warqabtaa xilliga aasaaskoodu ahaa? maadaama oo maansooniyadda waxyaabaheeda oo dhammi ay sir yihiin, lama tibaaxi karayo taariikhda rasmiga ah ee la unkay, balse iyaga waxa ay sheegaan waa maansooniyiinte inaan maansooniyadda magacan oo keliya loogu yeedhi jirin ee ay soo martay heerar iyo magacyo kala duwan. maansooniyadda ayaa si dhab ah ugu faanaa in kooda ugu horeeyey uu ahaa tiyaabul qaabil, boqorkii baabulweynuhu. waynu wada garanaynaa namruud inuu ahaa boqorkii ugu horreeyey ee dhisay burjiga baabil oo ahaa dhisme maansooniyadeed oo aad loo farshaxameeyey. waxaana uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee u hanqaltaaga inuu adduun weynaha u ka taago hal dowlad oo keliya, taasoo loo gacan gelinaya adduunka oo dhan. waxaana uu xambaarsanaa aragtida ah hal dowlad oo midaysan adduunka, waana ta wakhti xaadirkan la magac baxday qaramada midoobe. balse wakhtigaasi alla ayaa fashiliyey qorshahaasi. halkaasi waxaa inoogu cad afkaartii namruud inay qaar badan u hirgaleen maansooniyadda, kuwaasoo kala ah qaramada midoobe iyo hal dowlad oo adduunka maamusha, taasoo america US. dadka haysta amaba aaminsan maansooniyadda haddii aan dul istaago, waxaa jira fanaaniin, ciyaartooyo, kuwaasoo tiro badan. si haddaan dhowr ka sheego, waxaa ka mid a Justin Bieber oo ah fanaan heesa, Lionel Messi oo ah balayar kubadcageed, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho iyo qaar kaloo badan oo iyaguna ah ciyaaryahano. Madonna waa fanaanka ugu caansan maansooniyiinta adduunka. kuwaasi iyo kuwo badan ayaa la yidhaahdaa jimciyadda maansooniyiinta. waxaa sidoo kale ka mid ah qoraayo iyo filosofiyo iyo dad kale oo fara badan.